Mar lagu magacaabo Xafsa Queen oo ka mid ah gabdhaha caanka ka ah baraha bulshada ayaa saacadihii aynu kasoo gudubnay waxa ay daaha ka qaaday arrin ay sheegtay in ay tahay fashilkii ugu weynaa ee uu ku habsaday wiil xidhiirka la dhexeeyo oo lagu magacaabo Hanad iyo Xafsa Queen oo lamaane ahaa islamarkaana qorsheynaya in guurkoodu ama ay ku aqalgalaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa si la yaab leh u soo baxay muuqaalo iyo sidoo kale siro kala duwan oo fashil ah islamarkaana horseeday in gebi ahaanba uu burburo xidhiirkooda. Xafsa Queen ayaa iyadu si live u karbaashtay Hanad waxaanay ku tilmaamtay inuu ahayn qof dooqeeda ah islamarkaana dhibaato xooggan u geystay maskaxiyan iyadoo ay la daaladhacaysay lana macaamilaysay xanuun ay xooggan oo ay dareemaysay tan iyo markii ay aragtay sawiro iyo sidoo kale fiidiyoyo markaasi lagu tilmaami karo kuwa anshax darro ah, kuwaasi oo saygeeda iyo sidoo ama wiilka xidhiirka uu kala dhexeeyey iyo gabar kale oo saaxiibtiis ahaa ay isugula duubeen barta snapchat-ka kuwa uu lagu faafiyey baraha kala duwan ee tiktok iyo sidoo kale instagram-ka. Muuqaalada iyo sidoo kale qoraalada anshax xumada ah ee ay ka faafisay wiilka lagu magacaabo Hanad ayay ku sheegtay in ay ka turjumayaan dhaqankiisa iyo sidoo kale sida uusan isagu ugu qalmin iyada maadaama uu yahay shaqsi dhaqan foolxun islamarkaana ku kacay arrimo kala duwan oo anshaxa iyo dhaqanka iyo asluubta wanaagsan ee muslimnimadaba ka fog. Waxay sheegtay in waxyaabihii indhaheeda ay ku aragtay ay maleysan weyday maadaama ay ahayeen waxyaabo aanu run ahaantii la fiirsan karin si marka loo fiiriyo dhaqan ahaan, ayna ku tilmaamtay inay ahayd arrin aysan ka filinaynin ninkaasi xidhiirka kala dhexeeyay Hanad oo isdifaacaya ayaa soo fadhiistay waxaana uu ka warbixiyey fashilka iyo sidoo kale qarxiska ay ku sameysay gabadhan lagu magacaabo Xafsa Queen, waxaase uu gaashaan ku dururay dhammaan arrimahaasi inkastoo uu qiray inay jirtay gabadh xidhiir uu kala dhexeeyey sidoo kalena uu sheegayo in maadaama labadoodu markaasi khilaaf uu dhexdooda yimid islamarkaana ay adkaatay in ay isla meel dhigaan arrinta guurkooda, uu isagu xidhiir qarsoodi ah uu la lahaa gabar kale, taasina aysan ahayn wax ceeba sida uu hadalka u dhigay maadaama wadahadalkoodii iyo sidoo kale cilaaqaadkoodii uu socon waayey, taasi oo uu sheegay inay ahayd wax iska caadi ah ay noqon karto gabadhaasi imika la sheegayo in uu la tumanayay ay ahayd gabar uu qabay ama jaceylkiisa ahayd ama u dhexaysay. Si kastaba haatee Hanad ayaa meesha ka saaray arrimo kala duwan oo ay ku tilmaamaysay Xafsa Queen sida in uu yahay qof khaniis ah ama waxyaaba noocaas oo kale ah oo baraha bulshada aada u qabsaday saacadihiinu kasoo gudubnay. Haddaba Xafsa ayaa siyaabo kala duwan ooga hadashay arrinkan, dad badan ayaa la fajacay hadalladan iyo sidoo kale muuqaalada sirta ee Xafsa ay ka faafisay wiilka lagu magacaabo Hanad waxa uu ku nool yahay dalka Sweden, waxa uu ku sugnaa magaalada Nairobi, xiriir ayaa kala dhexeeya Xafsa Queen, muddo ayay iskula ceeshayeen magaalada Nairobi, waxay ahayd dad ceesho milix ah. Xafsa iyo dadku inta badan aada u karbaashayaan maadaama fashilkeedii saddexaad imika ay lugaha la gashay oo dhowr xiriiro hore ay markaasi ay kasoo fashilmeen ama ay ku guuldareysatay inay ka miro dhaliso, tanin ay ka turjumayso in iyadu aysan ahayn Xafsadii hore loo yaqaanay xilligii garhana rashka wiil lagu magacaabi jiray ay xiriir lahaayeen ama isqabeenba oo lamaana ahaayeen. wixii intaasi ka dambeeyay Xafsa Queen ay dadku aada u dhaliilayeen, qaarkoodna waxay kula talinayeen in bal sumcadeeda ay ilaashato oo ay ka fogaato waxyaabahan baraha bulshada ay ka bado iyo sidoo kale xiriirkan ay iyadu la yeelanayso dadka caanka ah kuwaasoo intooda badan noloshoodu fashil uu aada ugu soo dhammaanayo ama ay kusoo idlaanayaan dhibaatooyin iyo hagardaamo kala duwan oo iyadu ay aada uga cabanaysay in loogu geystay muddadii xiriirka ay la lahayd wiilkaasi. Dad badan ayaa waxa ay leeyihiin muuqaalkan Xafso ay soo daysay ayaa waxaa la oran karaa waa fashil qayb ka mid ah. Arrintan waxay imaanaysaa xilli maalmihii ugu dambeeyey raggay aada uga cabanayeen fiidiyoyo qaqaaban oo baraha bulshada aada u qabsaday oo dad badan ay la fajaceen oo ay sheegeen in ay ahayn fiidiyoyo gabdho Soomaaliyeed ay ka faafinayeen ragga kuwaasoo intooda badan doonaya in anshax markaasi arrimo anshax darro ah ay kula kacaan haweenka, balse iyagu hoostooda ay ka qaraxday oo nafsiga gabdhaha uu ku dhacay maadaama gursi horreysay ay jirtay gabdhaha iyagu ay dhibana u ahayeen ragga oo rakaato lagu hayay
fiidiyoyo iyo sawiro aad u xunxun oo mustaqbalkooda meel ka dhac ku ah iyaga laga faafinayay. Iminka waxay leeyihiin waa tookadii ragga ayaa markaa ceeb dhex fadhiya oo ceeb dhex dabaalanaya. waana qayb ka mid a muuqaalada iminka baraha bulshada aad u qabsanaya. Talow dadka caanka ah saameynta xooggan ee baraha bulshada iyagu ay ku leeyihiin iyo sidoo kale sida ceebtoodu ay durbow u faafayso meelo fogfogna ay u gaarayso. dadkani ehel ayay leeyihiin, walaal ayay leeyihiin, waalid ayay leeyihiin. arrintana baraha bulshada ay isticmaalayaan. dadkao dhanna baraha bulshada ay ku wada jiraan. dhawaanahan tiktoka waxay noqotay goob lagu bartilmaamaysado rag iyo dumarba. ceebta banaanka lasoo dhigayo ay u muuqato mid meel ka dhac ku ah ummadda soomaaliyeed, mid ka turjumayso sida dhaqankii wanaagsanaa iyo tarbiyadii dadkii lagu soo koriyey gebi ahaanba ay meesha oga sii baxayso. waana wax aad looga xumaado. xabsa kuweyn ayaa waxa ay aad ugu dhiiratay in ay ka hadasho xidhiirkii kala dhexeeyay wiil lagu magacaabo Hanad. sidoo kale waxay ku dhiiratay in ay soo gudbiso gabar kale oo ay ku tuumaysay in xiriir ula lahaa Hanad. sidoo kalena arrimo kala duwan oo aanu afka la soo marin karin ay sheegaysay in ay ku aragtay Hanad, walow ay ka gaabsato. waxay sheegtay in keliya ay soo gudbisay wax yar oo kooban marka loo fiiriyo cadeymaha kale iyadu u keedsan. waxa ay sheegtay in ay meel musqula inta isku xidhay, sidoo kale codka backgroundka la maqlayo uu ahaa Hanad oo oranaya albaabka iga fur, iyadoona telefonkiisa si dirqi ah ay uga faramaroojisay. deetana ay waxyaabo aad u falxun oo ay qaadan weyday, maankeedana ay ka dhaadhicin weyday ay ku aragtay telefonkiisa qaybta messajka qoraaladii kala duwanaa ee ku dhex maray isaga iyo sidoo kale gabadh kale, iyo sawirada iyo fiidiyoyada ay isdhaafsadeen ee anshax xumada ah laga dheehan karo. waana wax aad markaasi dadka uga yaabiyey saacadihii aynu kasoo gudubnay. si kastaba haatee waxaanu ku boorinaynaa marka dadka baraha bulshada adeegsado, siiba dadka caanka ah ee hagardaamadan, dhagartan iyo sidoo kale khiyaanadan iyo waxyaabaha ugu badan iyagu la kulmayaan, in iyaga ay sabab u yihiin. waxaa la yidhi lax kasta meesha isdhigta ayaa lagu qalaa. waxaa tahay qof adigu weyn oo mas-uuliyaddiisa qaadi kara, oo inta badan wixii xun iyo wixiisan garanaya, isla markaan loo baahanya in feejignaan sameeyo, la socdo tallaabo kasta oo fool xun oo isaga dhankiisa markaasi lagu qaadayo. waa qayb ka mid a waxyaabaha markaasi ummadda aynu ka doonayn inay ka digtoonaadaan. social mediana kolley marba marka ka dambeysa waxaad moodaa ceebo kala duwan dadku in iminka ay isu sii mashquulayaan, fashilkoodii uu sii batay, ceebahoodii ay sii bateen. gabdho badan oo soomaaliyeed ay ka cabanayaan guurla-aan soo wajahday sabab la xiriiro fiidiyoyo rakaata oo baraha bulshada laga geliyey. wiilal badan oo ka cabanaya mustaqbalkoodii burburka ku yimid, xidhiiradii ay lahaayeen iyo halka mustaqbalkooda uu ku dambeyn karo, iyo nafsiga ay ka guranayaan gabdhaha soomaaliyeed iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. subscribe saar janalkan, like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. waad ku mahadsantiin.